dhinaca kalena madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaarihiisa cusub. haddaba ra-iisul wasaare noocee ah ayuu u baahan yahay madaxweynuhu inuu soo magacaabo? maxayse yihiin arrimaha inta badan keena khilaafka madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaareyaasha? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahaana madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas. dabcan isbedel baa dhacay. isbedelkaasi ilaah ka rajaynaa isbedel khayr inuu noqdo. waan rajaynaynaa inuu yahay madaxweyne cusub baa la doortay, inkastoo madaxweynuhu dee markiisi labaad ee jagada loo dooranayo uu yahay wax badanna dee og oo dalkan 4 sano iyo xoogaaba soo maamulayey, aana uu ka warqabaa wixii baahiyaha jiray wakhtigaa isaga ah. wixii uu kaga gaabiyey waxa uu jeclaa inuu dhammaystiro. ereygiisii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystira. dabcan qabyadaasi uu garanaya waxay tahay. waxaas dhan marka waxay keenaysaa kolley inuu ogyahay isagu meesha uu yani itijaaha uu rabo inuu dalka uu ujeediyo. ayaan ka rajaynaynaa. dabcan de wuxuu u baahan yahay qof un shaqada qaban kara, ra-iisul wasaare shaqayn kara, mataqaanaa dhibaha jira iyo yani soomaaliya hadda waxa xayndaabka ay ku jirto soomaaliya, waxyaabaha loo baahan yahay in la saxo iyo waddankan hadda meesha uu joogo in laga qaado oo dabcan meeshuu istaahilo la geeyo. qof uu shaqo qaban kara isagana la shaqayn kara waa muhiim ah. meeshuu doona ka yimaado, gobolku doona ka yimaado, laakiin qof isagana ay wada shaqayn karaan. marka shaqadu waa collective work waaye, maogta shaqo ma aha qof keliga uu qabanayo. isaga iyo dee ciddii kaloo markaas dowladda ka tirsanoo ay wada shaqayn yeelanayaan. marka qof la shaqayn kara isagana shaqana qaban kara, intaasaa muhiima. waayahay xilligii hore ee madaxweynaha dowladdiisii hore ilaa 3 ra-iisul wasaare ayaa soo martay. dhibaato badan oo dhinaca isqabsiga way dhacday. si marka looga baaqsado arrintaasi in mar kale ay dowladdiisan ku soo noqoto, maxay tahay inuu qaado tillaabooyinka loo baahan yahay inuu qaado madaxweynaha? maxay tahay sababtaas aan ku leeyahay qofku inuu shaqo qaban karo, competent yahay. competency waa very important. qofku inuu competent yahay, shaqana qaban karo, fahamsan yahayna wadciga iyo dowladnimada Soomaaliya. qof aad u fahamsan baan rabaa inuu yahay, shaqana qaban kara, khibradna leh. dhanka kalena isagana ay wada shaqayn karaan. waa muhiim wada shaqayntu. haddii ra-iisul waxa la isku qabanaya waxay ahayd dabcan waxay ahayd un isfaham la'aan dhex imaanaysa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. taasaana keenaysay in 3 ra-iisul wasaare ay isbedelaan. marka hadda dee khibraddaasi wuu awleeyahay, wuuna garanayaa dadku soo xushay waxay isku maandhaafeen. dabcan wax badan shaqada waqtiga 2 qof oo carab iyo 2 daan baa isugu dhowaanayana waa isqoomaan. waxaa weeye dabcan dii la wada shaqaynaya waa la isqabanaya, laakiin waxaa rabaa waxaa lagu isku qabanaya inay tahay taskis, inay tahay shaqo dowladeed iyo hawsha maalmeedka dowladnimada baa lagu kala aragtiduwanaan karaa oo la isku qaban karaa, laakiin inaysan noqon mid shakhsi oo personaal ah oo shakhsiyad aysan noqonin. marka qof isaga ay wada shaqayn karaan, og yahay inuu shaqo la qaban karo, ay isfahamsan yihiin ayaa la rabaa inuu ay bayro tahay. isna dee dabcan khibraddaas madaxweynuhu waa leeyahay, loo tilmaami mayo. isagana yaqaana marka qofkaasi qofka uu yahay meeshu ka keensanaya iyo qofka ay wada shaqayn karaan. taas go'aankaas waa go'aan isaga muhiim ah, waa go'aan isaga u gaar ah, waa go'aan aysan cidina la wadaagin. marka saasaan isleeyahay. xafiiskan prime ministerka horeyna waad u soo maamushay. maxay tahay inta badan caqabadaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, qodobada inta badan ay isku maandhaafaan ee muranka iyo isqabsiga keena? maxaa ka mid ah? waxaan isleeyahay dabcan mararka qaarkood saldhig waxaa u ah qaabka dastuurku uu mataqaanaa uu howlaha u kala qeexayo, oo dastuurkaan aan dhammaystirnayn. waa laga yaabaa inay dhib noocaasi dhanka ay jirto, laakiin badanaaba waxaan u malinaya waxa la isku qabtaahi wax ka baxsan dastuurka weeye. waxaan malinaya wax un siyaasadda guud la xiriirta iyo itijaaha dawliga wax la xiriira unbay ila tahay, bay hawshaas u badan tahay. maaha u malinaya wax la xiriira dastuurka keligii maaha, laakiin waxaa laga yaabaa in to some extent ilaa xad in laga yaaba in yani shaqaabka nidaamka aanu qaadanay oo parliamentary systemka ahi qaabka hadda u samaysaya dastuurkeena laga yaabaa in ay mararka qaarkood shaqooyinku ay iska hor yimaadaan. laakiin in badanna dee waxaa la isku qabanaya u malinaya dee wax kale oo siyaasad guud ee dalka iyo wax la midaan u malaynaya. arrimaha horyaalla marka ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo, arrimaha looga baahan yahay ee horyaalla ee la doonayo in la dardargeliyo ee u baahan in si degdega wax looga qabto, maxay kula tahay way ugu muhiimsan yihiin? waxyaabo kale waxyaabo dadka la wada fahamsan yahay weeye oo
arrinta ugu muhiimsan de waxaa weeye in madaxweynuhu helo breathing space meel ku neefsado suu helana dee iyo dowladduna waa in lala dagaalamaa dadkan xagjirka ah oo dalka ama lala heshiiyey haddii heshiis ogol yihiin dis ogolayna dee lala waddanka nabadgelyada security it's very important waxaa weeye nabadgelyo mogtahay waa inaad horta si aad u shaqayso salmugan oo fariisata waaye laakiin dii xamar yani maalba qarax ka dhacayo dan waxaa weeye space qofku ku shaqayn karo oo nabada aan jirinba marka boqolkiiba boqol in xoogga la saaro mataqaanaa nabadgelyada ka bacdina howlaha muhiimka oo dastuurka dhammaystirkiisa dowlad goboleedyada iyo qaabka federalismka in la dhammaystiro arrimaha ijtimaaciga ah arrimaha siyaasadda ee dalka innaga hadda muddo ciidan waxaa nala joogay amisom ah oo abuuray dependency yani inaanu ku tiirsanaan ayaga nabadgelyadani marka wadanku sofran ma ahaan karo hadduusan mas-uul ka ahayn nabadgelyadiisii marka ciidan fiican oo dalka nabadgelyadiisa hanta oo si loo face out gareeyo meesha looga saaro ciidamadan ajnabiga ah dalka nala jooga waxaasoo dhan hawlaha u yaallo weeye on the top of thatna day to day activity shaqadii dawliga ahayd oo socotay oo arrimihii maaliyadda arrimaha canshuuraha arrimaha maxaa la yidhahdaa dee waxbarashadii caafimaadkii biyihii dadku moogta dowladnimadu dadka in wax tartaa la rabaa kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ahna madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u waramayey wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a